guddiga ka soo shaqeeyay hawshan dhinacyada badan lahaa iyo dadkii ay la soo kulmeen oo dhan oo talooyinkoodii ay ka soo aruuriyeen una dhaga nuglaaday ayagana inay dhageystaan oo ay muxuu ahay go'aanadanna ay la soo qaataan. annagu nabadaan rabnaa, dowladnimaan rabnaa, dimuqraadiyadaan rabnaa, in hore loo socdo oo doorashooyinkii sida qaanuunka iyo dastuurku tilmaamayo dib uga dhacsannahay inaanan ka daahinaan rabnaa. muddo dheer saan laguma sii jiri karo, inaan hore u soconnaan rabnaa. waxaan rabnaa in wax kastoo caqabad ah oo ra'iisul wasaaraha inuu xilkiisa iyo hawshiisa guto ku ah caqabad ama muxuu ahay culays in waddada laga leexiyaan rabnaa. taasi waa ballan hore aan ugu wada ballan dhammaanteen. hawshaas hadday naga dhammaato waa alxamdulilah, aad iyo aaday u mahadsan yihiin guddigu, saraakiishii ciidamadu ayagana aqbalayna aaday u mahadsan yihiin. annaguna intaas hadday iswadato annaguna aqbal waaye. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan u sheego waxa socda iyo nabadda socotaa iyo dalkii inuu nidaamkii dib ugu soo laabtay waa ku faraxsannahay. waa uga mahad celinaynaa, waana bogaadinaynaa ra'iisul wasaare Roble inuu hawsha halkaas ka sii wado. garba ayaanan u nahay cawaya casir, waa u taagannahay wixii fududaynaayo dalkan doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo, colaad iyo buuq iyo shoobarana aanay marna dhicin. waa u taagannahay, intaasaanan kala shaqaynaynaa, intaasaana nalagu ogyahay. dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeeno nabadaa jirta, colaadi ma jirto, xumaan ma jirto, qof qabta ma jirto. dalkan qaanuunka iyo waddadii saxda ah lagu ridaa la wada qabay. haddana waa la isla gartay in lagu rido, inta dhimanna dadaalkeedaan la imaanaynaa waana la dhammaystiraa. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.